bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhawaada walaalaha qaaliga ah, walaalihii hore noogu xirnaa iyo walaalaha cusub ee nagu soo biiri doona. jasaakumullahu khayr, waqtiga aad noo soo hurteen waa mar kale iyo fiideo kaleento oo ka hadlaya qisaska laga arkay xuska ilaahay iyo inaan isku dhiirigelin xuska ilaahay faa'iidooyinkiisa aan ka wada sheekeysano ayaan fiideoyadan qiimaha badan mar walba usoo duubaa. adinkana waxaan rajeynayaa inaad usii sheer gareysaan qof kasteento as leedihiin uu u baahan yahay inuu ka faa'iideysto qisaska looga hadlayo xuska ilaahay iyo digriga noocyadiisa kala duwan. insha allah waxaan rajeynayaa inaad like saarto oo ka heshay barnaamijka subscribe-kana ku xirasay oosan janalka kaaga lumin oo maalin kaleenta isdhihin aawo janalkii aan qisooyinka ka fiirsan jiray. insha allah waxaan u gudagalaynaa qiseenii laga arkay dhammaan xuska ilaahay. ugu horeyso istikfaarta, sababtoo ah istikfaarta fawaa'ideeda iyo nicamka laga helaa aad iyo aad ay u farabadan yihiin. ilaahi subxaanahu watacaala waxa uu nagu leeyahay qur-aankiisa faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana ghafaara yursil isamaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniina wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara. nimcooyinkii oo dhan waxay ku sugnaadeen istikfaarta, iyo dadka istikfaarsado ayaa fawaa'ideeda ka faa'iideystay. sababtoo ah ilaahi subxaanahu watacaala waxa uuna leeyahay istikfaarsada waan idiin dambi dhaafayaa. markuu ilaahay noo dambi dhaafo oon istikfaarsan, ilaahay wuxuu nagu siinayaa awlaadi maalkii oo ahaad bini aadanka labada ay ugu jecel yihiin. awlaad iyo maal waaye waxa loogu jecel badan yahay markii caafimaadka laga soo tago. waxaa kaloo ilaahay idinku siinayaa ayuu dhahay roobka idinkugu soo da-ayo, dhulkii ayaa beeri ayaa idiin baxaayo, oo webiyadii ayaa idiin soo burqanayo oo idiin buuxsamaayo, xoolihii ayaa candhadooda iyo naasahooda idiin dararayaan. markii aan ka faa'iideysana insha allahu xuska ilaahay khaasatan istikfaarta. qisadeen ugu horeysan haddaan u gudagalno waxay leedahay sidatan. gabadhani waxay leedahay qisadani ka sheekeynayso waxaan jeclaystay inaan idinkala hadlo qisada eedaday iyadii istikfaarta dhex martay. waxay aragtay janalo ka hadlayo iyo qisooyin looga hadlayo istikfaar. jisa fara badan ilaahay idin siiya ayay leedahay. waxay leedahay waxay ku bilowday qisada eedaday waxay ahayd waxay la qabay muddo 18 sano ah. 18 sanana wax awlaada ma aysan dhalin eedadeyda. waxay dhahday waxay aadi jirtay dhakhtarba dhakhtar, isbitaalka uu ka fiican yahay, dawada ay ka wanaagsan tahay, oldhow ubad baa lagu qaadi karaa. way isku dayday ay dhahday balse waxba kama aysan faa'iidin. laakiin markay ilaahay xaggiisa usoo noqotay ay bilowday istikfaarta muddo yar gudaheeda ilaahay waxa uu ku arsaaqay ayay leedahay eedaday awlaad oo ah gabar wiil, yacni awlaad isa sugu xigto gabar wiil ayuu ilaahay ku arsaaqay. alxamdulilah. 18 sano ee ka qasaartay hadday bilaabi lahayd mar hore istikfaarta, ilaahay waxa uu siin lahay awlaad saacadan intifaacsato oo awlaad waaweyn. balse ilaahay ma uu qadarin oo xilligan ayay u qorneed inay markay kusoo daashay dhakhaatiir fara badan qalbigeedana uu galay in ilaahay ay isku xirto oo ilaahay ku arsaaqo awlaadan. khayr inay u ahayd ayaa laga yaabaa kasoo daahida awlaada kasoo daahaday oo ilaahay ugu sababay in xaragga ilaahay iyo xoog ku qabsato ayna aaminto ilaahay qudradiisa iyo awoodiisa. xigtana waxaa ka sheekeynayso waa gabar waxa ay leedahay waxaan rabaa inaan idinla wadaago qiso dhacday muddo 13 sano ka hor ah. walaashay waxaa asiibay xanuun aad iyo aad u fara badan. xanuunkaasi oo jirkeeda oo dhan wuxuu noqday cagaar, xibnaheeda inta ugu badnaay oo dhan waxa ay joojiyeen shaqada ayay leedahay. dhakhaatiirta iyo isbitaalka markii la geeyna waxay dhaheen anaga yacni wax aan ka qaban karno ma laha xanuunkan, balse qaybta oo waxaan idiin gelinaynaa ICU-da meeshaas hadday noolaatana waa khayr, hadday dhimatana ku talagala labadaba inay dhici karto ayay dhahday. hooyaday waxay bilowday inay aad u oyso sababtoo ah waa qalbi hooyo oo ilmaheedu u walwalayo. irtana waxay bilaabayeen ayay dhahday inay daqiiqada ka dambeyso ay kasii dayrinayeen, ay leeyihiin hoos ayay u dhacday rajo fiican ma jirto ayay sii dhahayeen. hooyaday markii dambe waxa ay bilowday ayay dhahday inay ilaahay barido, istikfaar fara badan ay la imaato, qiyaamul leylna ay sameyso muddo 3 maalmood ah. 3 maalmood ayay wada oo xiriir ah. kadib ilaahay waxa uu u furay gabadhii in yacni dareenkeeda iyo taxarugeeda uu kiskis usoo noqdo, qalabkiina ay shaqeeyaan oo shaqadooda ay soo celiyeen. waxay dhahday subxaanallah, ilaahay ayaa xumaan ka nasahan, asaga ayaa wax dhintayna soo nooleeyo, wax noolna dile
waxay tiri waxay ahayd qiso la yaab badan oo hooyaday ka aragtay markii ay joogtay istighfaarta iyo qiyaamul leylka iyo duco fara badan markay la imaatay 3 bari gabadheedii yacni qalabka xitaa lagu xiray uusan shaqadiisi gabay ayaa waxay dhahday dib u soo noqotay oo soo yacni dhaqdhaqaaqeedii bilowday kadibna hadda waxay dhahday gabadhi waa naag weyn oo 16 jir ah ilaahay iyo xamdi iyo shukri oo dhan u sugnaaday waxay dhahday waxaan idinkula dardaarmayaa istighfaarta iyo qiyaamul leylka waana kanzi oo min kunuuzi dunya kamid ah walaalahayga oo ka faa'iideysta nafteyda iyo naftiinaba waa idinkula dardaarmayaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin ayay leedahay naga dhiga dad islaam oo na siiyay nimcadaas faraha badan oo aan dheernahay dad badan oo jahalo ama gaalo ah oo faa'iidadaas iyo nimcadaas aan ogeyn qisadeena xigtana waxaa ka sheekeynaya wiil waxa uu leeyahay assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waxa uu yiri qisadan waxay ku saabsan tahay istighfaarta iyo saaxiibkay wixii dhaxmaray waxa uu lahay guriga ayuu ka baxay asaga oo aan haysan qarashaad fara badan markuu guriga ka baxay uu daniisa soo oofsaday uu soo noqon rabana ma uu haysanin ayuu dhahay qarashaadka uu ku soo noqon lahaa gurigiisa iyo meesha uu aadayna waxa loo soo raacay ayuu dhahay labada bas lacagta uu haysan uma aysan goynaynin ayuu dhahay baska koowaad ayuu soo raacay jeebkiisina wuxuu u noqday ayuu dhahay mid maran markii uu noqday mid maran jeebkiisii uu iska fadhiistay ayuu dhahay meeshii wuxuu fadhiistay oo baska kale lagu sugaayay waxa uu bilaabay inuu istighfaarsado oo istighfaarta uu ku celceliyo balse wuxuu dhahay sikadiis waxa ku soo baxay baabuurka saaxiibkiisa oo mar hore isugu dambeysay waliba muddo 8 sano ah waxa uu nageeyay gurigiisa subxaanallah ilaahay ayaa xumaan ka nazahan waxa uu dhahay saaxiibkayga ma uu haysanin yacni wax uu ku soo raaco ama qarashaad wax jeebkiisa kuma jirin balse ilaahay wuxuu u soo adeejiyay oo u soo diray saaxiibkiisa oo 8 sano isugu dambeysay ayuu dhahay in ay sikadiisna isku arkeen gaarigii lagu soo qaaday asoo wax qarash laga rabin gurigiisa albaabkiisana la dhigay subxaanallah ilaahay ayaa xumaan dhan oo ka nazahan qisadeena xigta maantana waxaa ka sheekeynaya wiil waxa uu leeyahay waxaan ahay wiil ka qalin jabiyay jaamacad waliba haysto 2 shahaado oo jaamacad ah muddo 3 sano ah aan helin wax shaqo ah si kasto aan u daydayay shaqo haday noqoto mid iskuul mid caafimaad mid hay'ad meel walba oo shaqo ay taalo iyo meel walba oo laga shaqeyn karo iyo xafiis walba iyo meel walba iyo goob walba waan tagay balse yacni wax faa'iido kamaan helayn ayuu dhahay xitaa xafiisyada iyo goobaha qaar sida ugu noqnoqonaya ayay waxay dhaheen aad wajigaaga waan garanaynaa soo ma ahayn qofkii hebel oo xilli hebel noo imaan jiray xitaa shaqligayga ayay barteen ayuu dhahay sidii aan ugu noqnoqonaya farabadnaanteeda ayuu dhahay waxa uu dhahay markii dambeento waxaan go'aansaday inaan yacni markii shaqo la'aanta iga fara badatay oo daba noqnoqodkii iga batay ayaa waxaan go'aansaday ayuu dhahay inaan bilaabo istighfaar maalin iyo alleelba inaan akhriyo habeen iyo maalinba inaan istighfaarta ku celceliyo anigoo fadhiyo anigoo taagan anigoo socdo anigoo taleefankayga fiirsanayo iyo anigoo suuqa jooga ma aan joojinayn ayuu dhahay wuxuu dhahay markii xilligii daraasada isbuucii oo yacni waxbarashada sanadka la furayay ayay isbuucii ugu horeeyay xilli ku aadan ayaa waxaan sameeyay ayuu dhahay maalin guriga ayaan ka baxay waxaan ku sadaqaystay 2 qof ayaan sadaqo siiyay oo waxaan siiyay cunto yar oo cunaan markaas ilaahay waxaan ka bariyay sida uu dadkaasi u quudiyay yacni waxay ayaga shaqaysanin oo yacni aniga uu igu soo dhiibay in ilaahay anigana shaqo wanaagsan oo ilaahay igu arsaaqo waxaan iska fadhiyay ayuu dhahay meel iskuul geeskiisa ayaan iska fadhiistay ayuu dhahay aniga oo warqadahayga wato kadib waxa igu soo baxay ayuu dhahay anigoo banaanka fadhiyo maamulaha iskuulkaasi oo in badan wajigayga garanayay aniga oo ku noqnoqonayay waxa uu dhahay waan salaamay ayuu dhahay wuuna ibargartay markaasuu ilaahay shaqo ma heshay maya waxaa naga banaan mushrifka ama kormeero qof ah oo macallimiinta kormeero ayaa loo baahan yahay ayuu dhahay shaqadaas ayaa banaan diyaar ma tahay haa warqadahayga ayaan hayay ayuu dhahay farta ayaan isla markiiba ka saaray alxamdulilah ilaahay yaa mahad iska leh waxa uu dhahay shaqadii iyo wuxuu dhahay mashquulkii farada badnaa oo intaa arkay aan ku jiro oo muddada 3 sano aan la aay waxaan ku helay ayuu dhahay muddo yar oo kooban oo aan sameeyay inaan istighfaarsado iyo sadaqadii iyo ducadii aan sadaqaan baxsaday waana duceystay ayuu dhahay intaas yar oo basiidka ayuu ilaahay ugu siiyay ayuu dhahay waxaa muddo badan la kurboonayay alxamdulilah ilaahay yaa mahad iska leh walaalaha qaaliga qisaskeeni maanta intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa jasaakumullahu khayran hadda halkan na soo gaarteen waxaan rajeynaa mar hore inaad like saartay ilaahay waxaan ka rajeynaa qof walba meesha uu kurbaysan yahay inuu kurbada ilaahay ka feedo astawdicukumullah alladii laa yudiicu wadaa'icuhu gafkeeni geerideen ilaahay ma kulmiyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله.